السلام عليكم قالك ما تفهم كويس الناس اللي هكجرا ويب سايت يدا security ga jilicsan sida website kan oo kale imko kale hadan eego qofka website kan iskala emailkiisa ku galo waa kaas admin ba ku qoran thechooshop.ob waan copy gareynaya waxaan iska dhigay inaan isaga yahay ama dhanka passwordka ayaan isdhaafinaya okay hadan login in siiyo kabacdi halka emailka aan ku biskareeyo muxuu ahaa emailka markii soo copy gareeyay kadib intaas sameeyo waxaan kicinayaa tool loo yaqaan burp suite amarka ku kici hadaad ka linux ku jirtid sudo burp suite halkaas aad ku arkaysid okay burp suite marka burp suite markuu soo baxo sidan oo kale كبعد login بسينسا halkan hadan soo dhigo passwordku wuxuu iska gali kaliban isdhaafinina burp suite ayaa web proxy oo awoodaya inuu dhaafiyo hadaba kan uma baahnid forward button forward hadaba halka ugu hooseysa ku emailkiisa aad ku aragtid ay emailka waxaad gelinaysaa harijin or 1 = 1 laba hyphen iyo calaamada semicolon ama halka screen ka ku arki doonto waxaan galiyay sababtoo ah waxa loo yaqaan SQL injection oo ka website-ki waan galnay SQL injection ku isticmaalayna hadan profile-kiisa waa ka admin-ki weeyaan password-ki isagoo aan aragayaan gelinay muuqaalka like iyo subscribe channel